kulanku wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo looga wada hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Masar. xiriirkaas oo ahaa mid taariikhi ah baryahan dambana xawli sii qaadanaya sii xoojintiisa. labada madaxweyne waxay isla tilmaameen kulamo hore ay yeesheen waxyaabo lagu heshiiyey iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo ay ka mid tahay kaalmada dhan kasta dowladda Masar ay rabto inay siiso Soomaaliya ila garab istaagto marka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ayaa aad labada madaxweyne isula soo qaadeen.